caanka ah Xamda Yuusuf Ibraahin Xamda Qaali oo ay weerareen kooxaan la garanaynin ayaa waxa waraysi la yeeshay wariyahayga Samsam Sharaf oo ka tirsan hawlwadanada telefishinka Badda Cas. Samsam ilaa hadda sidee wax u dhaceen? wad mahadsantahay Maxamed, waxaan maanta booqnay waa Xamda Qaali oo dhaawac fara badan loo geystay, taasi oo cidii soo weerartay wali aan la haynin dablida hubaysnayd ay isla gurigeega ku soo weerartay iyada oo inoo faahfaahinaysa amba sheegaysa sidee wax u dhaceen. Samsame walaalo horta halkan lugta way iga soo gaadheen oo 14 qodob baa la tolay halkan boodiyada gacantana 6 qodob oo sare la tolay xagga hoosena waa la soo tolay walow xagga hoose inanku uu maalnimadkii markuu qorayay uu sixi waayay intuu tolay. dadkaas walaal horta dad ugu talagalay bay ahayn qudayga jaraan dad ilaa iyo gaarigaygii guriga dhex yeelay waa la furfuray oo ruqunta la furay oo boolka laga saaray sidii ku dhacday uu shilkan ku dhacay hadii aan kaaga sheekeeyana anigoo filin daawanayo guriga dhex fadhina 3 hablood baan guriga ku joognay cid kale nala ma joogin ayaaba aan inanku rido orod ii soo qaadka qaado tabiir uun si aan guriga ku ridano inantii dibadda u baxday albaabka dhaxay furtay waxay aragtay albaabka dibadda furan dib u soo cartay Xamda albaabkeenu uu furan yahay waan soo cararay inantu albaabka way xidhay markaa ka dhaxay intana ii qornayde intoo nooti soo dhaafay albaabka dhexda furay waaba soo badadagay kaabadaan u daadagnay inan kaloo iga dambeysay baan ku yidhi walaal tooshka markaa diirka qayba madow walaal tooshka moobilkayga soo shid baan ku yidhi moobilkii bay soo qaaday way shiday way soo daba istaagtay waxaan arkay albaabkii furan waxaan idhi walaal talo ma guriga la inoogu jira way naga jabnay marayna guriga la inoogu jira deetana wadana waan dhaqaaqnaa ma gaariga wala furfurtay gaariga waan soo qabtay misan hadda albaabka maxaa furay inan jaarko markaa naga baxday ayaan idhi talo ma sahara dhaaftay niyo waalatay adigu waxbayna hadal kugu daalina sidaad aan dhaqaaqin sireel albaabka xid uu soo booday ninku isagoo tooridu ka soo horeyso 3 nin bay ahaayeen 3 baafkay duubnaayeen ninka laakiinse igu dhiftay midida oo ninku u soo horeeyay buu ahaa nin dheer oo dhuuban oo madow buu ahaa afkana uu xidhnaa markii carar baan isiri dadana waxaan ahay dadka markay naxaan istaaga orkaan dib isu soo dhuftay ayaan kaabadii ku dhacay dhicitaankii aan ku dhacay ay taabuudada igu dhiftay inaan way soo carto gudaha soo gashay inantii labaad baa igu hadhay gacanta ay soo jiiday ay si daaban ku dhimid bay igu taalle tii labaad biisru dhuunta kaga dhufo saasu maandhoon gacanta asaawajo lawaka halkaas igu badbaadiyay ilaahay inantii way soo jiiday way awoodi weeday inay soo qaato markii dambe adigu waan dhig baxay meeshan degan wadiga arko halkan deekoona magaalada waan habli way qayliyeen qayla la isku daray nin baa soo dul istaagay ugu horeeyay noo soo galay ala wala dhiigay xid ninkii nin garan sibiliyo xidhnaanin casbuha ninkii juuqiyo jaaqtoona waan ka waayay way dur taagnaa uu yeegay ninkii markuu intuu arkay dadkii soo yaacay markuu arkay uu baxay bixitaanku baxay laba dumar inan kale waashman horteeda kaaba soo galay gaarigayga furiisa xataana tilmaamay wali man miir doorsamay markaa laakiinse waa la igu qaadi kari waayay gaarigii dad inan baa la igu yeedhay inankiiba gaariga kaxay isla markiiba taayirkiiba booday ruquntiba baxday taayirada kalena boolasha la dabciyay alxamdulillah rabbil caalamiin adigu dhakhtarkii la gaarsiiyay wadada inta taxi la iga qabtay saldhiga la geeyay waxa la jaray feestadii dhakhtarkii weynaaba la geeyay waa la tolay imaka way tolan tahay ilaa xilligaasna Samsameen ragaas gacan ku dhiglay geesta kale Xamda Qaali ayaa fariin u dirtay xukuumadda iyo ciidamada dabagalka dambiyada noocaas ah in la soo qabto dabladii hubaysnayd ee dhibaatada inta la gaarsiisay oo wali ayna ka haynin wax sal iyo raada kiisa dawladda iyo hogaamiyayaasha amniga waxaan ka codsanay inay gacan ku dhiglayaasha ay gacanta ku soo dhigaan waa talaabadii u horeysay imika qaadeen laakiinse hadhow dawladda dadweynaha ayaabay wax yeelayaan waana wax sii socon doonto dib u soo afgaahayn hadii aan maanta talaabo laga qaadin oo wax laga qaban. Samsam Sharaf, Badda Cas TV, Hargeysa.